السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. qof walbo anaga naga mid ah wuxuu jecel yahay taajir inuu noqdo ama hantiile bulshada dhexdeeda magac ku leh inuu noqdo. taajiriinta taajirnimada ma aha wax qofku uu ku dhasho ama abtirsiimo uu ku helo, sidoo kale faqriga ma aha wax oo maxal yiraahdaa abtirsiimo lagu helo ama la dhaxlo ma aha. aabahaga ama awoowayaashaada haddii taajiriin ahaayeen macnaheeda ma aha adigina inaad taajir noqonaysid. kaliya waxaa u baahan tahay ruuliska aabba ama awoow uu raacay inaad raacdid si aad magaca ayaga ay lahaayeen mid lamid ah u samaysid. kaliya waxaan u baahannahay ruuliskaas oo kaliya inaan raacno, maadaama ruuliskaas ruulis u qarsan dadka taajiriinta aanan ahayn oo la wada yaqaano. waa inaan ku dadaalnaa in nolosheena gaarka aan ku dabaqno ama meel marino go'aamada annaga aan gaarayn. ruuliskaas waxaa ugu muhiimsan inta ugu badan taajiriinta ay sheegaan buugaagtooda ku qoran maamulka lacagta la maamulo. qof walbo taajir ha noqdo ama faqiir ha noqdo, lacag way soo wada gashaa. differentiga waxa sameeya waxa weeyaan hab dhaqameedka ama qaabku u maamulo waxa soo galo. kaba soo qaad $1 haddii qof faqiir uu soo galo, $1 qof taajir uu soo galo. qofka faqiirka ah noloshiisa bishaas ayuu u isticmaalayaa wuuna maxaa la yiraahdaa wuuna dhamaynaya lacagtoo idil. halka qofka taajirka markuu ugu horeysa kunka uu soo galo uu ku fikiro in kunkaasi uu meel maalgeliyo. kunkaas markuu meel maalgeliyo wixii ka soo baxaa haddii lacala deen laga rabay uu isaga bixiyaa. halka qofka faqiirka ah markay kunka soo gasho kuba deenka laga rabay uu iska bixiyo. maamulka lacagaha annaga aan maamulnaa waxay sameeyaan inaan faqiir si ahaano ama inaan taajir noqono. marka laga hadlayo maamulka lacagta waxaa la soo qaataa 4 qodob oo ugu muhiimsan ilaa 5 qodob ku dhawaad. tan ugu horeysa waxay tahay qofka waxa soo gala markay wax soo galaan ama hadiyada ugu yimaadaan ama wax u shaqeysta ku soo galo in uu miisaaniyad samaysto. miisaaniyada waxa ugu horeeyo oo qofka in uu dhabihii hantiilanimada ama taajirnimada saaraya ay ka mid yihiin. in qofka miisaaniyad uu hagaajiyo uu qorto bishan wuxuu u baahan yahay shakhsiyadiisa ama reerka ama noloshiisa oo idil bishan wixii ku bixi lahaa waa inuu diiwaan geliyo. haddaysan ku diiwaan gashaneen macnaheedu waxa waaye jid meesha uu ku dhammaanayo aadan aqoonin qof raaca ayaad la mid tahay. miisaaniyadda bishaas wixii ku baxaayo waa inaad xadidatid oo aad tiraadid waxaan baan u baahanahay waxaan u baahanahay. midda labaada waxay tahay miisaaniyadda markaad hagaajisatid in aad ku fikirtid waxa lacagtaada bishii la soo dhaafay tirada ugu badan ka isticmaalay. bishii la soo dhaafay lacagihii ka baxay xaggee aadeen, ma meel ku muhiim ay ku baxeen mise meel laga maarmi kara ayay ku baxeen. haddii meel laga maarmi kara inta ugu badan ay ku baxeen waxaa loo baahan yahay inaad ku fikirtid qaabkaad u istaajin lahayd ama waxyaabahaas aad ugu maarmi lahayd. tan saddexaad waxaa la sheegaa in qofku wax meel dhigto, in saving aad samaysatid. bisha wixii ku soo galo idil haddaad wada isticmaashid oo bisha kale wixii ku soo galo idil aad wada isticmaashid, waxaan ku weydiinayaa goormee faqriga aad ka tagi doontaa. tan afraad waxay tahay amaahda deenta. mar walbo deen aad qaadatid oo mar walbo faqriga aad u dabarantay. deen baad qaadatay bisha dambe taan bixinayaa tiri wixii ku soo galaa marka aad bixisid waxaad u baahan tahay sidoo kaleeto mar kaleeto inaad deen qaadatid. macnaheeda deenta dhabaha hantiilanimada aad ku noqon lahayd waxyaabaha kaa dabraaye kow bay ka tahay. midda shanaada waxay tahay caqabad ka timaada markaa safinka aad samaysid oo ah inaad u fikirtid qof wax haysta camal markaad u fikirtid waxoogaho yar meel kuu dhigmay taajirnimo aad isku xisaabtid environmentiga aad ku jirtay aad ka baxdid nolol maalmeedka aad isticmaali jirtay waagii hore aad ka baxdid. macnaheedu waxa waaye dib inaad usoo laabatid ayay kugu khasbaysaa. waa inaad u fikirtid sidaad awal ahayd intaadan safinkan yar aadan samaynin ka hor sidaad ahayd uun aad u dhaqantid in noloshaada aysan waxba ka bedelin. annaga waa isnaqaanaa Soomaali haddaanu nahay xogaho yar markayna soo galaan waa ka baxnaa areadaas maxaa la yiraahdaa areada taajiriinta ay degan yihiin ayaan aadnaa annagoona wax buuran haysanin
waxaa macquulay subaxdii markaa meesha degnaba galabtiiba ay wixiiba soo dhammaadaanba. marka waa inaan ku fikirnaa qaabkaan ahayn inaanan ka bixin. waa in aan u fikirnaa, aan u dhaqannaa sida qof waxba aan haysanin camal aan u dhaqannaa. shantaas shardi haddaan wada marno oo lacagahana soo gala maamulkooda aan wanaajino, koobka faqriga dhulka ayaan dhigaynaa insha allah. hantiilayaasha ama tujaarta ayaan ku beeraynaa. sidaa hore idinkugu soo sheegayba, lacagta inaad shaqaysid waxaa ka dhib badan kana adag oo haddaa aad samaysidna kuu wanaagsan waa maamulka lacagta la maamulo. farqiga waxa sameeya oo taajirnimada ama faqriga differentiga sameeyo waa maamulka lacagta la maamulo, ma aha tirada soo galayso qofkan. saxaabadii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh kuwii reer maka ahaa, marka rasuulka uu soo hijrooday dhanka madiino uu soo aaday, way soo raaceen rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh. dadka soo raacay waxaa ka mid ahaa cabdiraxmaan bin cawf, taajir maka dhexdeeda magac ku lah ayuu ahaa. laakiin markuu soo baxayay oo madiino usoo hijroonayay, xolihiis waxba muusan kasoo qaadan, isagoo faramaran ayuu yimid madiinatul munawara. rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh markuu uu arkay saxaabadii reer maka xaaladaha ay ku waajaheen iyo faqriga iyo saboolnimada iyo martinimada madiina ku qabsatay, wuxuu walaaleysiiyey walaalahooda kaleeta ee madiina loogu yimid. cabdiraxmaan bin cawf radia allahu canhu wuxuu walaaleysiiyey rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh saxaabi la yiraahdo reer madiina, sacad bin abi rabiica radia allahu canhu. sacad nin asaga naftirkii wuxuu ahaa taajir ah reer madiina dhexdeeda magac ku leh. sacad wuxuu ku yidhi cabdiraxmaanoo xoolahaygan waan kala haafayaa, haaf baan ku siinayaa, xataa xaasaska ayaa la sheegaa, xaasaska xataa mid ka mid ayaan kuu furayaa inuu yiri. cabdiraxmaan wuxuu yidhi radia allahu canhu wa ardaah, maadaama taajir uu ahaa, ruuliska lacagaha uu yaqaanay, mayuu yidhi niyo xoolahaaga allaha kuu barakeeyo, xaaskaaga allaha kuu barakeeyo, keliya waxaa i tustaa suuqa i tus buu yidhi. cabdiraxmaan bin cawf suuqa ayaa la tusay. maalinka ku xigtay xooluu haystay haba yaraatee. maalmo kadib, bilooyin sanado kadib, qaswo rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh uu aadayay buu 500 faras islaamka ugu yaboohay ayuu kusoo taageeray. sidoo kaleeto waxaa la sheegaa 1500 halaad, 1500 neef oo geel ah oo maxaa la yiraahdaa xamuul sida inuu mar asagna sidoo kaleeto uu sadaqeeyay. cabdiraxmaan inkastoo madiina uu yimid asagoo faramaran, laakiin wuxuu yaqaanay ruuliska lacagaha lagu soo qabta ayuu yaqaanay. marka waxaana looga baahan yahay inaan aamino in hantiilanimada ama faqriga ruulis la raaco oo keliya ay tahay. ruuliska hantiilayaasha haddaad raacdid ayaad ka mid tahay, laakiin annaga si automatical ah maskaxdeena waxaa ugu daabacan bii'ada annaga aan ku weynaani darteeda, waxaa ugu daabacan oo mar walba maskaxdeena kasoo guuxana xukuma ruuliska faqrinimada lagu noqdo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.